gobolka Bay ayaa warbixinta warkan goordhawood inoo soo diray. deegaanka Wardiile waxa ilaa iyo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi uu kaga beegan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana halay dagaal u socday muddo saacada uu ku dhaxmaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM oo isgarabsanaya iyo Al-Shabaab. dagaalkaasi oo socday muddo saacada ayaa waxa khasaaro baan uu ka soo gaaray dad shacab oo xilligaasi ku guda jiray akhriska Quraanka Kariimka. tir ahaan dadka ku nafwaay dagaalkaasi waxa ay gaarayeen 14 qofood oo dhamaantood ah dadda isla markaana isugu jiray culmaawdiin iyo isimo caan kuwa deegaankaasi waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 3 qofood oo hadda lagu dabiibayo cisbitaalka gobolka Bay. waxaana maanta gaaray deegaanka dhacdadu ay ka dhacday xildhibaano ka kala tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo taliyaal ciidan kuwaas oo u kurgalayay cidda ka dambeysay dhacdada foosha xun ee lagu xasuuqay dadka Birmigeedada ah. dadka deegaanka Wardiile oo maanta ugu duuneed maalmihii hore u soo maray ayaa waxaa la hadlay Malag Malabo Isa Xasan Keero oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ka soo jeeda deegaankaasi waxaana u tacsiyay dadka shacabka deegaankaasi degan arday horta ma guudnimo way inta asiyayane intii dhibaatada ka dheeday guudnimo gaarnimo dadkun dhalay ilaahay sabar iimaan leh haysi shahiidu min shoolka dili marka arday taas ku araan taasidiiw inta may rooge wasiiradii saraakiishii arday ciidamada dhammaan ya roogan dad badanna waraysi ku qaadni arday in xaaladooga aradan ku dhiyaan wal qarsan ma wal ogiyo wali fadaane way rooge wasiirkii qaabilsanaayay armoogan dhacdada hage arday dadka hubaysan ku kooyo arday qaabilsanaya roog wali rooge gudoomiyihii degmada roog wali rooge dhawaan Ibrahim Yaro roog xildhibaan Ibrahim Isaaq Yaro oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda hubka dhigista iyo dhaqaaleynta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka Xasan Xuseen Maxamed Elay ayaa sheegay in arrintan guddi loo saari doono isla markaana soo baaraya cidda ka dambeysay dhacdadan foosha xun ee lagu laayay odayaasha dhaqanka insha Allah ta'ala hasin kanaga doon guddi baarisal soo biidon dadka dhamadeen insha Allah may faraana dadka shacabka inta dhamadeen in la duugo dadka ehladiyoon ku tacsiyayaan eedna ma santiin deganaantii wanaag san mawjoodan insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala inti dhamati oo noobati odayaalkii oo anaska jareen xujaayta dadoo ku xajiriday xajka injeedi oo arintii dhamaysanaaytay waayil ee ka jara may ka jara dadkan ka dhamaday nabadoon ka jara oo dadkan oo meel ra'iisul hormuudan hay dadkii oo dhaqanka hay oo beelo horjoogan hay ka jara ulmaadi deegaanka ka jarta dad jirnaayay oo xanuunsanaay ka jara dadkii quraanka saaray oo dadkaas jirnaay quraanka saaray ka jara dadka dhamadi taradii oo waliba deerase oo hadda meel raayusa masaajidka iska baal galanayaale oo meeliiko ka dhamadeen seenay ka dili inka seeni meedidka korsho goobtii gulliyo ka dhamadeen oo korseeni hadana la aruuri inta wali taaleha tuman isida ya taala ki tuman i afaraad suuna soo dhaawacay anta xalay lagu qaaday nasiib daro ilaahay naxariisaha jidka ka dhamadi Siraaj Sheekh warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Baydhabo.